sanadkii 1991 waxaa ka dhacay dalka dagaalo sokeeye waxaana ku agoontoobay kumanaan caruur agoon Soomaali ah kuwaas oo aabbayaashood ku waayay dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacay dagaaladaasi waxa ay sababeen in dalka uu galo burbur dhinacyo badan taabanaya waxaa jiray culimo diin Soomaaliyeed oo isku xilqaamay inay caawiyaan caruurtii ku agoontooday dagaaladaasi Sheekh Aadan Xasan Xuseen iyo culimo diin kale oo qayb ka ahaa ayaa xilli dab uu ka holcayay geyga Soomaaliyeed waxay u istaageen u gargaaridda caruurta agoonta ah ee aabbayaashooda ku waayay dagaaladaasi waxaana dhidibada ay u aaseen xarun lagu xanaaneeyo caruurta agoonta ah taa oo lagu magacaabo Tadaamun waxaana laga hirgeliyay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose markiiba waxay u howlgaleen xanaaneynta iyo waxbaridda caruurta agoonta ah kumanaan caruur agoon ah oo haysta iminka darajooyin kala duwan oo dhanka cilmiga ah sida PhD master iyo dhaqaatiir caafimaad ayaana ka aflaxday jamciyadda Tadaamun al-Islaami waxaana xilliga kaalmo ay ka heli jirtay jamciyadda Tadaamun al-Islaami hay'ado samafal oo fadhigoodu yahay Khaliijka iminkase waxaa saameyn ku yeeshay kaalmadii ay heli jireen caruurta agoonta ah ee ku xareysan xarumaha ay maamusho jamciyadda Tadaamun al-Islaami ee ku kala yaala Afgooye Qoryooley Walaweyn khilaafka soo kala dhexgalay wadamada Khaliijka sida uu tilmaamayo gudoomiyaha jamciyadda Tadaamun al-Islaami Sheekh Aadan Xasan Xuseen jamciyadda Tadaamun al-Islaami saadogtiin adeegyada bulshada ay u fuliso waxaa ka mid ah ricaayatul aytaam waxay leedahay 3 markas oo agoon lagu xanaaneeyo Afgooy Daafeed Walaweyn sanadkan culays baa la soo gudboonaaday oo khilaafka Khaliijka ayaana saameeyey awal carabta xaggooda ayaan wax ka heli jirnay culaysyo ayaana soo gudboonaaday marka waxaan rabaa inaan risaalo u diro dhowr qaybood oo bulshada Soomaaliyeed ama bulshada muslimiinta ka mid ah koow muslimiinta dhammaan waxaan leenahay gargaar ayaan weydiisanaynaa si ilmo waxaan haynaa 1500 ah oo biilka ka go'ay marka waxaan masaj u diraynaa muslimiinta oo dhan inay gargaar la soo gaaraan laba qaybta kale aan waakaas masaj u dirayo wax waaye dadka Soomaaliyeed oo dibadda ku nool ayagana waxaan leenahay hanala soo gaaraano wax kaas aroortan waxaan ku badbaadino waa laga gudbi doonaa khilaafkan Khaliijka waa laga gudbi doonaa dadka muslimiinta markii hore agoontan biili jiray sidii bay u taagan yihiin diyaarna u leeyihiin xoolahooda inay ku bixiyaan walaalahooda dhibaataysan laakiin lilasaf shayaaiin al-ins wal-jin ayaa waakaas culays saaray u diiday inay waxooda sadaqaystaan marka dadka Soomaaliyeed oo dibadda ku nool waxaan weydiisanaynaa in gargaar ay nala soo gaaraan kooxda saddexaad aan u naadinayo inay gargaar nala soo gaaraan wax waaye dhalinyaradii Soomaaliyeed maraakistan ku kortay xarumahan agoonta ku kortay ku waxbaratay jaamacad ka soo baxday hadda jaamacadka macallimiinka ah walfasooro ka ah madaarista barwasooro ka ah waakaas shirkadaha howlwadeena ka ah shalay waxbaa la idin taray maanta waa la idin baahan yahay shilinkiina ayaa loo baahan yahay waxaan leenahay qof allaala qofkii maraakistan ku koray anigoo aabbahiina Sheekh Aadan ah waxaa idinka codsanaa bisha Agoosto mashaarkiina nin kastaba 100 ka mid ah akoonadayn inuu ku soo rido marka waxaan leenahay ilmahayni wiilashayni gabdhahayni shaqeeya dowladda gaafadeeda ka shaqeeya ayaa waxay ku shaqeeyaan hadda maanta meesha ay ku soo bartaan meeshan ay tahay maanta waxaan leeyahay bisha Agoosto soo socota mushaarkeeda nin kastaba 100 oo agoonta lagu badbaaday 3 bilood soo socota ayaan ka codsanaa waa hubaal in bulshada Soomaaliyeed ay yihiin dad samaha wanaagga iyo samafalka loogu daydo su'aasha isweydiinta mudanse waxay tahay yay kaalmo ka sugayaan caruurta agoonta ah ee ku xareysan xarumaha kala duwan ee ay maamusho jamciyadda Tadaamun al-Islaami mar haddii ay meesha ka baxday kaalmadii laga heli jiray wadamada Khaliijka haddaba walaalayaal waxaan u baahannahay inaad
الفقر وفقد الوالد المعين وحالة البلاد الاقتصادية وحالة الجمعية كما ذكرت والله المستعان. aayadaha quraanka kariimka iyo axaadiista nabiga ayaa lagu amaanay dadka kaalmeeya caruurta agoonta ah waase hubaal qaybo badan oo ka tirsan bulshada Soomaaliyeed inay jawaab degdeg ah ka bixinayaan hadalkan ka soo yeeray caruurta agoonta ah ee ku xareysan xarumaha kala duwan ee jamciyadda tadaamun al-islaami ay ku leedahay gobolka Shabeellaha Hoose.